bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal kusoo dhawaada youtube-ka wararka soomaalida ah fadlan subscribe saar like iyo share ka ilooban sidoo kale gambaleelka furo si wararkii ugu dambeeyay idiin soo gaaraan kulankii xildhibaanada ee golaha shacabka ayaa maanta baaqday sida uu sheegayo gudoomiyaha golaha shacabka kadib markii la waayay kooramkii loogu talagalay inuu ku furmo kulanka gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan baaqashada ka hor saacad dheeraad ah ku daray waqtigii furitaanka ee kulanka kadib markii kooramka buuxsami waayay laakiin waa la waayay xildhibaanadii buuxin lahaa kooramka kulamada golaha ayaa sida uu xeer hoosaadka dhigaya la doonayaa inay ku furmaan 139 mudane baaqashada kulanka ayaa timid sidoo kale xilli intii uu soo xaadirtay qaarkood ay banaanbax ka sameeyeen xarunta golaha kaasoo loogu soo horjeeday ajandaha kulanka qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa xarunta golaha kaga dhiidhiyay gumaadka iyo xasuuqa lagu hayo shacabka Soomaaliyeed iyagoo codku u yihiin xildhibaanada qaar ayaa boorar ay ku qoran yihiin golaha shacabka waa wakiiladii iyo codkii shacabka la xasuuqayo ee ma ahan golaha shacab la tagay xarunta golaha shacabka oo maanta ka dhacayay kulankii ugu horeeyay ee kala fadhiga shanaad golaha shacabka ayaa maanta ka doodayay ajandaha dib u eegista dastuurka waxaana jira xildhibaanada qaar oo dhaliil ka keenay isla markaana ahayd in laga hadlo xaaladda amni darro ee ka jirta dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo waliba qaraxyada ku soo badanaya